xukuumadda Tallibaan ayaa ugu baaqday Mareykanka iyo wadamada kale inay aqoonsadaan dawladda Tallibaan ee haatan ka arriminaysa Afghanistan iyagoo sheegay in haddii taasi ay dhici weydo ay sii xumaanayso dhibaatada bini'aadamnimo iyo dhaqaale ee haatan ka taagan Afghanistan waxaana ay sheegeen in dhibtu aanay ku koobnaan doonin dalka Afghanistan oo kaliya balse ay gaari doonto caalamka oo dhan. Kooxdan Islaamiyiinta ayaa dib ula wareegay gacan ku haynta dalkaasi bishii August waxaana ay ka dhiseen magaalada Kabul ee caasimadda wadankaasi dawlad ku meel gaadha kadib markii ciidamadii NATO oo warkacayay Mareykanku ay isaga baxeen dalkaasi taasi oo soo afjartay ku dhawaad 20 sano oo dagaal uu ka socday gudaha Afghanistan. Ilaa iyo hadda ma jiro wadan si rasmi ah u aqoonsaday dawladda Tallibaan sidoo kale bilaayin dollar iyo hantidii uu dibadda ka taalay dalkaasi ayaa la xayiray xilli wadankaasi uu wajahayo dhibaatooyin dhaqaale iyo kuwa bini'aadamnimo oo aad u daran. Afhayeenka Tallibaan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kabul Sabixullah Mujaahid ayaa yidhi in la aqoonsado nidaamka haatan ka jira dalka Afghanistan waa xaq ay leeyihiin dadka reer Afghanistan mana jirto cid naga duudsi karta xuquuqdeena. waxaana uu intaasi ku daray fariintayada aan u dirnay Mareykanka waxa ay tahay haddii aqoonsi la'aanta ay sii dheeraato in sidoo kale ay sii dheeraanayaan dhibaatooyinka ka taagan Afghanistan taasi oo haatan dhibaato gobolka ah balse gaari doonto ugu dambeyn dunida oo dhan. waxaana uu xusay in kulan ka dhacay dalka Qatar horaantii bishan ay madaxda Tallibaan fariintan lamida ku gaarsiiyeen madaxda dalka Mareykanka isagoo sidoo kale sheegay inuu rajaynayo in arrintani la xallin doono. inkastoo aanu jirin dal aqoonsaday dawladda Tallibaan ayaa haddana saraakiil sarsare oo ka socda dalal dhowra waxa ay caasimadda Kabul ee Afghanistan iyo wadankaasi dabadiisaba kulamo kula yeeshaan hoggaanka Tallibaan. booqashadii ugu dambeysay waxa ku tagay Afghanistan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga kaasi oo sabtidii shalay ku sugnaa caasimadda Kabul. labada dal ayaa la sheegay inay ka wada hadlayeen sidii sare loogu qaadi lahaa xidhiidhka u dhaxeeya Turkiga iyo Afghanistan. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa horaantii toddobaadkani kula kulmay dalka Qatar saraakiil sarsare oo ka tirsan Tallibaan sida uu xaqiijiyay afhayeenka Tallibaan. waxaana uu sheegay in Shiinuhu ballan qaaday inuu maalgeliyo kaabayaasha dhaqaale ee dalka Afghanistan iyo in badeecadaha Kabul ay u dhoofaan suuqyada Shiinaha iyagoo sii mari doona dalalka la jaarka sida Pakistan oo kale. Sabixullah Mujaahid waxa kale oo si qoto dheer uga hadlay arrimaha ka taagan xuduudaha gaar ahaan Pakistan oo maalmihii u dambeeyay xidhnaa iyo mudaharaadyo halkaasi ka dhacay. waxaana uu sheegay in isu socodka xuduudaha Pakistan iyo Afghanistan ay muhiim u yihiin dalkiisa. waxaana uu xusay in arrintani ay ka wada hadleen labada dal kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan uu safar ku yimid magaalada Kabul. inkastoo ay Tallibaan raadinayaan aqoonsi haddana waxaa jira in ammaanku aanu aad u deganayn waxaana jira weeraro ka dhaca gudaha dalkaasi iyadoo ugu dambeeyay weerar dabley hubaysan oo isku sheegay inay ka tirsan yihiin Tallibaan ay ku qaadeen xaflad aroos oo ka dhacaysay bariga dalkaasi si ay u joojiyaan miisig halkaasi ka socday. weerarkan ayaa sababay dhimashada 3 qof iyo dhaawac soo gaadhay 10 kale balse afhayeenka Tallibaan Sabixullah Mujaahid ayaa sheegay in 2 ka mid ah raggii weerarkaasi qaaday haatan xabsiga loo taxaabay isagoo sidoo kale beeneeyay oo meesha ka saaray inay ka tirsanaayeen shaqaalaha Tallibaan. isbahaysiga uu horkacayo Mareykanku ayaa duulaan ku qaaday Afghanistan kadib weerarkii lagu dilay dadka badan ee Mareykanka ka dhacay Sebtembar 2001 waxayna xukunka ka tuureen dawladdii Tallibaan ee xilligaasi jirtay kadib markii ay dawladdaasi diiday inay Mareykanka u gacan
geliso hogaamiyihii alqaacida Cusaam bin Laden kaasi oo Washington ay ku eedeysay inuu ka dambeeyay weerarkaasi. hase yeeshee afhayeenka Tallibaan oo arrintani ka hadlayay ayaa yidhi arrintaasi waxaa lagu xallin karaya wada xaajood iyo isafgarad siyaasadeed, waxaana laga hortagi karayay dhibaatooyinkii ballaadhnaa ee ka dhacay gudaha Afghanistan iyo dagaalka 20 sannadood socday. afhayeenka Tallibaan ayaa sheegay in sidoo kale ay u gudbiyeen Washington doonistooda in Mareykanku safaaradiisii ka furto magaalada Kabul si dib loogu bilaabo hawlihii diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay labada wadan. waxaana xusid mudan in wadamada reer galbeedka ee horkacaya Mareykanku ay safaaradii ku lahaayeen magaalada Kabul xidheen kadib markii Tallibaan ay la wareegeen xukunka Afghanistan, balse waxaa jira qaar ka mid ah wadamada deriska Afghanistan iyo kuwa kale oo xidhiidh la leh dalkaasi sida China, Pakistan, Iran, Turki iyo Ruushka oo iyagu si toos ah u furtay xafiisyadoodii diblomaasiyadeed ee ku lahaayeen Kabul. sidoo kale waxaa jira wadamo kale oo shirar heer sare ah la gala madaxda Tallibaan. si kastaba ha ahaatee Tallibaan ayaa waxa ay ku dadaalayaan inay soo celiyaan xasiloonida wadanka Afghanistan iyagoo wajahaya dhibaatooyin iyo mushkulado badan. hase yeeshee dadka reer Afghanistan ayaa siyaabo kala duwan uga dareen celiya xukunka Tallibaan, iyadoo qaybo ka mid ah bulshadu ay u arkaan wax wanaagsan oo soo celin kara xasiloonidii dalkaasi, halka kuwa kalena ay ka dayrinayaan xukunka ay gacanta ku dhigeen Tallibaan. Zana waxa ay ka mid ahayd dadkii ku lug lahaa dhaqdhaqaaqyada xuquuqda haweenka ee wadanka Afghanistan, waxaana ay sheegtay iyadoo arrimahani ka hadlaysa kahor intii aanay Tallibaan imanin waxaana laga duudsiyi jiray xuquuqo badan oo naga maqnaa, balse waan ku faraxsanahay hadda inay Tallibaan xukunka qabsadeen sababtoo ah waxaan helay waxoogaa xorriyad ah. waxaan tegi karaa goobaha waxbarashada, kuwa shaqada, waxaan sidoo kale booqan karaa oo aan waqtigayga la qaadan karaa saaxiibadayda. waxaan sii wadi doonaa dadaalka iyo dagaalka aan ugu jiro xuquuqda haweenka. Sagal Cabdiraxmaan Axmed, Shakaal TV, Hargeysa.